la taaban karo iyo dib u habeen ku sameeyno laamaha amniga ee dalka sida ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed booliiska iyo hay'adda sirdoonka qaranka si loo dejiyo qorshayaal ciidan oo si rasmi ah uga hortaga argagixisada waxaan bilownay diiwaangelin ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kuwaasoo intii hore loo diiwaangeliyay ay mushaharaadkooda si toos ah ugu heleen ama ugu dhacay koontooyinkooda ama accountiyadooda waxaana sidoo kale socota in la dhameystiro inta harsan si ay iyaguna xuquuqdooda si toos ah ay u helaan insha Allah Ilaahay raahdo sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan xukuumadda aan ku bogaadinayaa dadaalada ay ka wado dib u habeynta hanaanka maaliyadda ciidanka si uu askari walba xuquuqdiisa toos ugu helo ciidanku waxay noo leeyihiin ahmiyadda ugu horeysa ee mushahar bixinta laakiin waa in askari walba la diiwaan geliyo oo aan diiwaan gelino si aan u ogaano tirada dhabta ah iyo sida ay u howlgalayaan mudane gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin dhinaca hirgelinta sharciyadda labadii sano ee maamulkaygu jiray waxaan saxiixay 2 sharci halka 29 hindis sharciyeed